xisbiga mucaaridka UCID oo saaka u lahaa maalintii ololaha doorashada ayaa saaka gabi ahaanba lagu arag wax tallaaba oo uu u qaaday in uu olole ku muujiyo waxaanay ku bedeleen inay booqdaan cisbitaalada iyo jeelasha oo ay gaarsiiyaan xoolo nool si ay u quutaan bukaanada cisbitaalada jiifa iyo maxaabiista jeelasha ku jira waxaanay ka doorbideen isu soo baxa ololaha inay dhibta iyo dareenka la qaybsadaan shacabka cisbitaalada u jiifa xanuunka iyo maxaabiista xoriyad la'aanta xabsiga ugu jira talaabadan xisbiga UCID ku talaabsaday ayaa waxay soo jiidatay dareenka bulshada waxaanay cadeyn buuxda u tahay ka warhaynta bulshada waxaana arrintaasi mahadiyay isla markaasina ku tilmaamay ficil muwaadinimo agaasimaha cisbitaalka Burco taliyaha ciidamada asluubta gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiin ku hadlayay afka cisbitaalka Maandheeye waxaanay ku bogaadiyeen dareenka dadnimada leh ee xisbiga UCID u hayo bulshadiisa ku sugan waa cisbitaalka weynaaye ee gobolka Togdheer waxaa kaloo ugu sugan maxay tahay goobtan team ka socda maxay tahay ururka UCID oo hogaaminaya gudoomiyihii ururka UCID ee maxay tahay gobolka Togdheer xisbiga UCID faylaal xamdu waxay deeq xoolaha soo gaarsiiyeen cisbitaalka taasoo ay uga jeedaan maxay tahay maalintoodii ololaha ay u bedesheen inay sadaqa ahaan u gutaan maxay tahay maalintan oo kale waxaan qabaa anigu in ay aakhirada adduunba iyo dadkaba faa'iido u tahay tani waayo arigana nimanka idinka gudoomay waxa lagu wareejinayaa loo qalaya waa maxaabiis aad bay ugu baahan yihiin runtii in gacan la siiyo wax la taro waxaan leenahay ilaahay halkii aad ka soo saarteen horta marka hore lacagta ayada ee loogu talagalay durbaanka iyo maxay tooy buuqa ee xaggan u leexiseen ilaahay khayrkeeda haydi siiyo cid kasta oo fikirkeeda iyo taladeeda laba waxaan leenahay aakhiriya adduunba khayr Allah haydi siiyo waxaan halkan kaga gudoomay xisbiga UCID ari waxoogaaya waxaan u gudoomay dadka dhimirka Maandheeye aan meesha ku hayno geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta xisbiga UCID heer gobol iyo heer qaranba waxaanay tilmaameen in xisbiga UCID uu markasta la dareen yahay bulshadiisa oo dadka jilicsan waxtar u leh ayaanu saaka go'aansanay inaan sameeyno halkii aanu ka sameyn lahayn buuq fara badan iyo sawaxan fara badan oo ay ka dhacdo macsi fara badan waxaanu saaka sameynay inaanu xoolo nool ku wareejino meelaha ay dadka jilicsan ku nool yihiin saldhigyada jeelka magaalada Burco jeelasha cisbitaalka weyn cisbitaalka Maandheeye inaanu xoolo nool maanta wax weeyaa la bari ay ka dhigtaan aan ku wareejino waxaanuna sidaa u yeelay insha Allah in hawsha badan caawa magaalada ka socotay ee dhibta badan ku haysa dadkeena bal aanu waxaanu fagaarihii shacabka ee siyaasadeeda aan ku soo bandhigi jirnay u bedelay inaanu shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland la dareen noqono Maxamed Jookar warbaahinta caalamiga Ariel TV Burco